Salaamu calaykum walaalayaal. Muuqaalkan hadduu ku soo gaaro, isku day inaad la wadaagto dadka kale si ay ugu noqoto cibro qaadasho, ayna u xasuustaan inay Rabbigooda ku xamdiyaan. Muuqaalkan waxaa idinkaga muuqda laba qofood, waa dad isqaba. Ninka ma lahan wax luga ah, gabadhana gacanta midig ayaa go'an sida kuwa muuqata. Suuqa ayay soo aadeen. Ninka marka ay soo baxayso guriga ay ka soo tagayso, kama soo tagayso dhabarkeeda ayay ku soo qaadaysaa, ayadoo oo ay ku ridayso caag ay ugu talagashay. Noloshooda way iskaabayaan. Waa dad iscaabiya, waa dad mar walba isgarab jooga. Ayadu waxa ay qaban karta ayay qabanaysaa, isagana inta uu qaban kara ayuu dhammaystirayaa. Adduunyadu waa imtixaan. Rabbi dadku kalama jecla, laakiin waa la isku imtixaanayaa. Waxaa laga yaabaa maanta wax aanan macno lahayn inay ku haystaan, laakiin waa inaa ogaataa inay dunida dusheeda ku nool yihiin dad adiga kaa daran. Waxa aad dareemayso ka daranna dareemaya, xanuunka ku haya xanuun ka daran dareemaya, iyo dhibka ku haysta dhib ku daran dareemaya. Maxaa ka xun in lugihii aad ku socon lahayd aadan haysan oo aad ka go'an tahay? Sabarka gabadhan ay muujisay fiiri, sabar aan yarayn ayay muujisay. Ayadoo gacan ka go'an ayay waxay u dulqaadatay, u sabartay oo ay go'aan ku gaartay inay nolosha la wadaagto qof ayada ka daran oo ka liita marka si loo fiiriyo muuqaalka. Laakiin jacaylku iyo rabitaanku waa muhiim, waa wax cajiiba oo lala yaabo mararka qaar. Asaga saasay tahay, waad aragtaa siduu u saacidaya xaaskiisa, maadaama ayadu hal gacan aysan lahayn, asaga gacmaha ayuu ka saacidayaa. Ayadana maxay leedahay? Lugihii ayay leedahay, asaga lugihii ma lahan. Maadaama ayada lugihii ay leedahay, markay soconaysa dhabarkeeday ku qaadaysaa si ay u dareensiiso inuu yahay qofka soconaya asaga, uusan isku dareemaysiinin wax kale. Wuxuu soo galay jikadii ama kushiinkii wax lagu karinayay, wuxuu fuulay kushiinka korkiisa, wuxuu jarjarayaa khudaar si uu u saacido xaaskiisa ama gabadha nolol wadaagga ay yihiin. Wax buu karinayaa sida kuwa muuqata si uu u saacido xaaskiisa. Maasha Allah, waa dad isku kalsoon, waa dad nolosha macnaheeda fahmay. Waxay soo aadeen dabaal. Arag waxa dhaca markay dabaalanayaan. Way soo gashay, asagana wuu ka soo dabagalay si kalsooni leh. Weliba wax walba aad adiga samaysanayso ayay samaysanayaan maanta. Wax walbo adiga aad qabsanayso ayay qabsanayaan. Waa dad iskaaba. Noloshu waa iskaab. Ogsoonow, haddii aadan ku xamdin Rabbigaaga oo aadan ugu xamdin nimcada aad haysato, Rabbi wuxuu yidhi haddii aad igu shukrisaan waa idin siyaadinayaa nimcada aad haysataan. Laakiin haddaadan igu shukrin, wax nimco laguu siyaadinayo ma jirto. Waa inaad Rabbigaaga xasuusnaataa mar walbo, kuna xamdisaa nimcooyinka Rabbigaaga uu ku siiyey, uu kugu deeqay. Ogsoonaataana in aad tahay qof nolol dhammaystiran haysto. Xaalad walba oo aad ku sugan tahay waa inaad tiraahdaa alxamdulillaah. Haddii aad xanuunsan tahay waa inaad tiraahdaa alxamdulillaah. Haddii aad tahay curyaan waa inaad tiraahdaa alxamdulillaah. Sababtoo ah dad adiga kaa daran oo kaa liita ayaa joogo. Marnaba ha fiirin dadka kaa horeeya ama kaa sareeya ama haysta noloshaada nolol ka duwan. Maxaa ka xun ama ka liidata inaad tahay qof lugo aan lagu socon karin leh, qof gacmaha ka go'an aan wax walba qabsan karin. Laakiin waa imtixaan. Ogsoonow, xaalad walba ood ku sugan tahay. Imise ayaa isbitaalada ku jiro? Maxaad aragtaa markaa isbitaal ka tagto? Wax la yaaba. Dhammaantiina waxaa idinka codsanayaa muuqaalkan inaad sheer garaysaan, lana wadaagtaan asxaabtiina kale si ay ugu noqoto